Asalaamu calaykum kusoo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa cuntooyinka ay tahay inaysan cunin hooyada naaska nuujinayso, waxyaalaha laga rabo inaysan cunin ama aysan cabin ayaan kaga hadli doonaa. Marka soo dhawaada, haddii aad ku cusub tahay gruupka, subscribe noo saar, gambaleelkana furo. Haddaa hore noola joogtana like share dheh si dad kale u sii gaaraan ay kaga faa'iidaystaan. Muuqaalka saan hore u sheegay waxaan kaga hadli doonaa cuntooyinka ay tahay inaysan cunin hooyada naaska nuujinayso. Ilaa iyo waxaan kala qaadi doonaa 5 cunto. Tan koowaad waxaa ah cuntooyinka spicy-ga ah oo kulul oo basbaaskii waxaas ka samaysan. Waxaa wanaagsan inaysan cunin ama basbaaska caadiga ah oo la tumay ha noqdo ama waxyaalaha kale xawaajiyada iyo waxyaalaha kale kuleylka oo basbaasyada leh inaysan cunin wanaagsan, sababtoo ah ilmuhu wuxuu ku sameeyaa maqas waxa loo ku sameeyaa iyo intifaaq inay sameeyaan. Calooshooda intifaaq waxaas ku timaado sababa adigu waa in ilmaha calooshooda inay hawo badan gasho sababa oo cunugii hawada ay ku xiranto taasay keentaa. Marka waxaa wanaagsan cuntooyinka kulul inuusan qaadanin. Waxaa tan labaad ah cabitaanada gaaska leh inaysan qaadan ama cabitaanada aashitada leh. Waa waxaan Coca-Cola iyo Sprite iyo 7up iyo cabitaanadaas waxaa wanaagsan cabitaankiiba aashita ku jirto inaysan qaadanin, sababtoo ah hooyada 9 bilood waxay soo martay ay uur leedahay oo lafaheeda ay daciifayeen, haddana waxay galay sanad 2 sano 6 bil ilaa ay meesha Ilaahay la gaarsiiyaba xilli haddana naas nuujinayso oo haddana lafaheeda ay jilcan yihiin. Cabitaankan marka lafuhu wuxuu ka dhigaa hasho ka dhigaa lafaha wuxuu u daciifiyaa. Marka iyadoo 9 bilood ka soo baxday lafaheeda 9 bilood soo furfurmayeen, haddana hadirtan ay naas nuujin ku jirto, haddii haddana cabitaanadan aashitada la ku darsato lafaheeda eber waa daciifay naqayaan, hashaashay naqayaan. Haweenka kale waxaa ku jirto caffeine madal ku jirto. Caffeine ilmaha waxay ku keentaa markii uu gaasadkan oo cabitaanadan aashitada leh ay cabto kale lafaheeda waxay naqayaan hashay naqayaan, caanihi raacayaan marka li'aana hooyada waxay cunto naaskan way galayaan. Marka aashitada ay hooyada cabtay caanihi raacayaan, cunug hadda lafihiisa la dhisayo hadirtan lafihiisa ay abuurahayeen waxaa ku keenay in lafihiisa asagan hash naqdaan daciif naqdaan. Mid labaad waxaa ku jirto maadada la yiraahdo caffeine markii caanaha raacday ilmaha cunaan waxay ku sababtaa cunug inuusan hurdo fiican uusan helin oo cunug soo jeedkiisa u bato kale hurdo raaxa leh uusan helin oo badnaahay haddii cabitaanadaas oo kale ay basato. Waxaa wanaagsan qudaarta qaar inaysan cunin haddii cunayso oo kale aysan basan. Waxaa kamid ah basasha, toonta, karnabka iyo qaranbiidka kamid ah. Marka karnabka iyo qaranbiidka walaal Soomaaligood ma aqaan laakiin sawirkooda idin soo gali doona iyo basasha toonta, sababtoo ah ayagana xisaaban hawadaas xisaaban oo ilmaha calooshooda gasho. Marka hawadaasna xoog ilmaha badanaa way dhibtaa. Hadda wax cudur kale saas dhib badan ma ahan, laakiin cunuga hawo badan hadii calooshiisa gasho raaxa ma dareemayo. Cunugii ooyin iyo wuxuu bilaabaa hooyada raaxa ma dareemayso, cunugna ma dareemayo. Mar haddii cunuga hawo badan ku xiranto ooyin bilaabaa saaqab isaga saar ma yaqaaneen. Tan afraad waxaa waaye macmacaanka waxyaalaha macmacaanka leh oo dhan iyo shukulaatada inaysan cunin, sababtoo ah waxaa ku jirta maadada caffeine la dhahay ayaa ku jirto. Tan shanaad waxaa waaye cabitaan waxyaalaha la murabihaadka sida ka soo qaad shaaha, qaxwada, waxyaalahaas iyo Nescafe-ka cabitaankan kafeegan oo Nescafe-ka dad jecel jira gabdho jecel. Marka caadi ahaan horta gabdhaha ma wanaagsano oo haday basato wuxuu leeyahay caado wareer uu leeyahay. Haddii oo aysan naas nuujinayn oo kale aysan uur lahayn oo kale caafimaadkeeda caadi ah oo gabarnimo uma fiicno, wuxuu leeyahay caado wareer uu leeyahay. Markii had naas nuujinayso oo kale hooyadan ay tahay ma wanaagsan in shaaha iyo qaxwada iyo Nescafe-kan ay basato, sababtoo ah waxaa ka buuxo side uga buuxo maadadan loo yaqaan caffeine. Marka caffeine sa hore u soo sheegnay cunug hurdo fiican ma helayo, taas waxaa ka sii daran oo leeyahay xagga korinshaha aqliga ilmaha sidii la rabo ma naqahayo. Maadadan caffeine waxyaalaha ay ku badan tahay anaga intaan naga soo qaadana, laakiin isku day inaad raadsid oo kale wax kasta oo caffeine ku jirto ka fogaatid inta naaska nuujinaysid iyo inta uurka leedahay, sababtoo ah caffeine wuxuu keenaa in koritaanka aqliga ilmaha
uu dib u dhac ku yimaado oo xilliga sidii loogu talagalay uusan u korin ayuu keenaa. Marka insha Allah ku dadaala caafimaadka ilmihiina iyo naftiinaba ku dadaala. Marka intaasaan kusoo gabagabeynaa. Soo dhawaada haddii aan ugu cusub tahay subscribe noo saar lambarkana furo. Hadda hore noola joogtana like share si hooyooyin badan ay u sii gaaraan kaga faa'iideystaan. Soo dhawaada waa mahadsantihiin.